السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. maanta waxaan idin wadaa 32 qiso oo gaagaaban oo salawaad ku saabsan nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Intaan u gudbin laba wax. Midda koowaad waxa waaye waxaan jeclahay mar inaan qisooyin oo qoraal ah soo dhigo dhinaca postiga oo community post. Kuwaasna waxaan jeclahay mar anigoo faraaqa aan hayo inaan iska soo dhigo maadaama mar kasta aan faraaqa u haynin inaan wax soo duubo. Marka dadka akhris ku fiican ha akhristaan, dadkii kaleetana ha iska sugaan muuqaalada insha Allah. Midda labaad qisooyinka caawa aan hadda wado maanta waa qisooyin kuwa u fiican waa u dambaysiiyey runtii saa uga tagin meeshaan kulli waxaan rabaa inaad dhegeysataan oo ka faa'iidaystaan insha Allah. Okay, qisooyinkan waxaan kasoo wada qaatay YouTube Sheekh Bakar Ismaaciil, waxaan kaloo kasoo qaatay text messages oo lagu qoro fiidiyoyaasha hoostooda marka isku soo habeeyey. Marka aan bilaabo qisooyinkeena qisada koowaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan si joogto u akhriyey saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo 3 maalmood oo kaliya. Waxaan ku celcelin jiray salaatul ibraahimiya kadib salaada witirka markii la gaaro ilaa iyo subaxdii. Waxaan rabay hal duco oo aan alla ka baryayay. Alxamdulillaah hamigaas wuu ii rumoobay waqtigii aan rabay kaliya sababtoo ah waxaan ku dadaalay salaatul ibraahimiya muddo 3 maalmood. So ilaahay qofkan wuu siiyey wuxuu rabay 3 maalmood ka bacdi. qisada labaad ramadaankii hore waxaan alla ka baryayay ducooyin badan laakiin wax duco ah laygama aqbalin. Markaas ayaan go'aansaday inaan ramadaankan gudaheed maalin kasta ku akhriyo salaatul ibraahimiya 1000 jeer. Wallaahi ramadaankii ma dhammaan ilaa dhammaan ducooyinkaygii aan muddo dheer ilaahay ka baryayay ilaahay ii wada aqbalay. Waxaan ogaaday in sababtu ay tahay in ducadu ay ku hakato samada iyo dhulka inta u dhaxayso ilaa uu qofka uu ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaa jira xadiis oo sidaa dhahaya ducada oo dhan waxay ku hakataa samada iyo dhulka dhexdooda ilaa lagu saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaan maalin kasta akhrin jiray salaatul ibraahimiya 1000 jeer inta uu ramadaankii socday. Markaas ayuu alla ii aqbalay dhammaan ducooyinkaygii oo dhan. Alxamdulillaah. qisada saddexaad gabar ayaa waxay tiraahday waxaan jiray 40 sano waligay qof ima soo doonan manan aanan gelin guur oo balan ah. Waxaan bilaabay inaan maalin kasta tiro badan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. Hal wiil kadib nin ayaa isoo doontay waxaana galnay ballan guur. Hadda oo aan kula hadlayo waxaan ahay gabar la qabo fadliga ilaahay dartiis. Storyga afraad macallin ayaa wuxuu yiraahday waxaan sanado badan alla ka baryayay hal arrin oo gaar ah. Markii aan samaystay dikri oo maalinle ah oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hamigaygii oo dhan wuu rumoobay oo wax yar bil gudahood ayaan ku helay wax kasto. Waxaan akhrin jiray Allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabina Muhammad. Waxaan maalin kasta akhrin jiray 3000 oo jeer ka hor intaysan bisha dhammaan 27 maalmood kadib ilaahay wuxuu siiyey wixii aan rabay. Inkastoo sheegin waxay ahayd. Sheekada shanaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan lahaa hal hami oo aan 8 sano sugayay. Muddo 8 sano ah marna kama daalin ducadaas laakiin weli ilaahay ima siin. Markaas ayaan bilaabay inaan habeen kasta 3 meelood meesha u dambaysa ee habeenka ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo qiblada u jeeda. Waxaan xitaa joojiyay ducadii gaarka ahayd. Waxaan xooga saaray oo kaliya saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Wallaahi 24 maalmood kadib ducadeedii si cajiib oo aan rumaysan karin buu ilaahay iga aqbalay. Sheekada lixaad nin ayaa wuxuu yiri muddo dheer ayaan shaqo la'aan ahaa. Wax shaqo ah ma jirin albaab walbana wuu iga xirmay. Waxaan bilaabay dikriga salaatul ibraahimiya waxaana sii waday 3 wiig. Fadliga alla awgiis waxaan helay shaqo Kuwait ku taala oo mushahar aad u sareeya leh. qisada toddobaad nin kale ayaa wuxuu yiraahday waxaan lahaa waxaan weligay jeclaa oo aan ku riyoon jiray oo aan muddo 3 sano sugayay. Wallaahi hal wiig oo dhan ayaa habeen iyo maalin ku salinayay nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo adeegsanaya salaatul ibraahimiya. Wixii aan 3 sano sugayay ugu dambeyn ilaahay waa ii sahlay. qisada sideedaad gabar ayaa waxay tiraahday muddo 20 sano ah carruur ma dhalin. Waxaan guursaday anigoo 18 jir ah.
waxaan ilmo la'aan ahaa ilaa aan ka gaaray 38 sano. Markii aan maqlay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo si joogto ayaan ugu dadaalay inaan sameeyo. 30 maalmood kadib ayaan ogaaday inaan uur leeyahay. 20 sano oo dhan waxaan sugayay markaasaan helay mataano Ilaahay i siiyay alxamdulillaah. Qisada sagaalaad gabar ayaa waxay tiraahday walaashay maysan guursan guurkeedu wuxuu dib u dhacay ilaa ay ka gaartay 47 sano. Markii ay maqashay fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay maalin kasta bilowday salaatul ibraahimiya. Wallahi hal bil kadib nin da'deedu ku dhow ayaa soo doontay wayna guursatay. Maantana waxay ku nooshahay nolol guur wanaagsan alxamdulillaah. Qisada tobnaad gabar kale ayaa waxay tiraahday waxaan si joogto ah u tukan jiray salaada habeenkii. Waxaan sameyn jiray ducooyin badan laakiin ducooyin badan laygama aqbalin. I think taas qalad waaye because ducooyinka Ilaahay wuu aqbalaa hadday hadda tahay ama in hadday tahay gadaal ma aakhiro naga sii horeyso. Anyway aan sii wada sheekada. Markii aan ogaaday fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam mar dambe ma aanan sujuudin hal sujuud oo qiyaamo leyl ah ilaa aan marka hore si badan ugu saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba salaatul ibraahimiya kadibna aan duceysto. Wallahi laga bilaabo maalintaas aan sidaas sameeyay duca kasta oo Ilaahay ka baryay waan helay. Kulligood waan wada helay alxamdulillaah. Qisada 11aad nin ayaa wuxuu yiraahday wallahi anigu si dhab ah ayaan u tijaabiyay saameynta saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimo u ekaa oo aan suurtagal ahayn. Arrimihii oo dhan way dhaceen wixii oo dhan aan rabay Ilaahay waan helay. Ilaa maantana waxaa jira waxyaabo igu dhacay oo aan mararka qaarkood weli la yaabo oo fahmi karin xataa sidoo possible u noqdeen. Ma isticmaalin tusbax gaar ah mana aanan lahayn hab gaar oo aan ku tiriyo adkaarta balse waxaan ka dhigay inta badan ducadeedii salaada dhexdeedii saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu akhrinayay mar walba ninkan. Qisada 12aad gabar ayaa waxay tiraahday waxaan arkay riyo ku saabsan fadliga saliga iyo salaanta nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaan maqlay cod igu leh saliga nabiga waxaa ku jira mucjisooyin arrimo yaab leh. Waqtigaas waxaa ku jira cadaadis badan iyo dhibaatooyin fara badan. Maalintaas kadib waligay kama tagin saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waxyaabo badan oo aan rajaynayay ayaa ii fududaadeen. Ilaahayna wuxuu i siiyay risqi aanan ka filayn meelo badan. Sheekada 13aad gabar Suuriyaan ayaa waxay tiraahday ninkii aan doonayay ayaa xabsi la dhigay xilligii dowladda ay ka jirtay Suuriya. Dhowr maalmood ka hor intii aan nidaamka dowladda aysan dhicin ayaan bilaabay inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba siiqada gaaban oo caadiga ah. Wallahi 13 maalmood gudaheed nidaamkii iyo dowladdii waaba dhacdayba. Anigu waxaan alle ka baryay oo kaliya in ninkayga xabsiga laga sii daayo laakiin Ilaahay wuxuu sababay in dowladda dhanba ay burburtaba. Ninkii aan doonayay si nabad ah ayuu xabsiga uga soo baxay wuuna soo noqday isagoo caafimaad qaba. Qisada 14aad gabar kale oo Suuriyaan ayaa waxay tiri walaalkay wuxuu maqnaa sanado badan oo wuuba mirqayba wax war ah kama aanan hayn. Waxaa si joogto ah ugu akhrin jiray salaatul ibraahimiya. Kadib waxaan riyo ku arkay qof igu leh qof kasta oo maqan wuu soo noqon doonaa rajada Ilaahay ha ka quusanin. Markii aan 3 bilood sii waday salaatul ibraahimiya walaalkay oo sanado badan naga maqnaa ayaa si lama filaan ah inoo yimid. Markii dambe waxaan ogaanay inuu xabsi ku jiray. Alxamdulillaah Ilaahay isagoo nabad ah ayuu noo soo celiyay. Qisada 15aad gabar ayaa waxay tiraahday jimcihii la soo dhaafay midii ka horeysay ayaa waqti badan ku qaatay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Kadib waxaan maqlay qof igu leh waqtiga ducada la aqbalo wuxuu ka bilaabmaa maqribka khamiista ilaa iyo maqribka jimcaha. Wuxuu xataa sii socdaa ilaa subaxda sabtida. Ujeedadu waxay ahayd inaan la joojin bay tiri gabadhan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigaas sababtoo ah waa waqtiga alla uu ducada aqbalo. To ayadu way ku riyoota umaleynatan. 16aad gabar ayaa waxay tiraahday waxaa la igu sameeyay sixir. Sheekadan waa sheeko cajaa'ib leh waa yaabay. Gabar baa waxay tiraahday waxaa la igu sameeyay sixir. Waxaan go'aansaday inaan si joogto ugu saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo niyadda ku haya in Ilaahay iga furfuro sixirkan. Waxaan sii waday saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa jinkii dhibaatada igu hayay ee iga dhaxadleen oo yiraahdeen bas nagadaa saliga nabigiina wuuna gubayaa wuuna dhibayaa
wuxuu gubayaa sixirka wuxuuna gubayaa kuwa ilaaliya iyo kuwa u adeega sixirka kadibna waxay yidhaahdeen sababtaas awgeed ayaa maalinta jimcaha aad ugu dadaalnaa inaan idinka mashquulino saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaan isku daynaa oo kale inaan carabkeena mashquulino oo aamusiino ilaa maalintaasoo adagna dhaafto jinku wuxuu leeyahay maalmaha jimcaha waa maalin adag buu yiri oo dhib badan baa lagu hayaa maadaama salawaadka ee aan akhrino qisada 17aad gabar ayaa waxay tiraahday alxamdulillaah arrimaha gabadhayda ee jaamacadda aad bay u adkaayeen waxaa mar walba alla ka baryi jiray inuu ku guulaysiiyo waxbarashadeeda intii lagu jiray imtixaanada waxaa maalin kasta akhrin jirnay salaata ibraahimiya 1000 jeer alla wuu iga aqbala ducadii gabadhaydiina way guulaysatay waxbarashadeediina way dhammaysatay alxamdulillaah waxayna noqotay kalkaaliso caafimaad 18 gabar ayaa waxay tiraahdaa waxaan aaday cumra dhammaan cibaadadeedii hareeraha kacbada safa iyo marwa iyo goobaha barakaysan oo dhan waxaan ka dhigtay salaatul ibraahimiya oo keliya fadliga alla awgiis wax kasta oo aan jeclaa way ii rumoobeen waxaan rabaa inaan idiin sheego ducooyinkaygii iyo baahideedii ma ahayn baahi fudud waxay ahaayeen waxyaabo u ekaa inay suurtagal ahayn dadkan horta waxaa la garan la'yahay annaga ma mar xataa aan hilmaanaa wax ilaahay impossible agtiis ah ma jirto wax kasto ilaahay wuu awoodaa soo marka haddii aad rabto inaad wax weydiisato waxyaala waaweyn allah ka dhigay weydiiso okay 19 nin ayaa yiri waxaan dhageystay muxaadaro ka hadlaysa saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo sida uu mararka qaarkood kugu filnaan karo booskii ducadaada waqtigaas waxaa ku jira deymo badan waxaan muxaadaro ku maqlay in saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam uu qaado walbahaarka iyo murugada markaas ayaan gurigeygii aaday habeen iyo maalin waxaan ku mashquulay saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam 13 maalmood kadib dhammaan deymahaygii oo dhan waa laga bixiyay meelo aan ka filanayna baa ilaahay iga soo saaray subxaanallah 20 gabar ayaa waxay tiraahday dhowr sano ka hor waxaan galay dhibaato aad u weyn iyo murugo aad u culus wax xal ah ma aanan helin marka laga reebo saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam sidaa darteed habeen iyo maalin waxaan ku mashquulay saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam fadliga alla awgiis dhibaatadaas waxaan uga baxay si aan ku tilmaami karo mucjiso dhab ah oo keliya qisada 21 gabar ayaa waxay tiraahday gabdhaha channelka ku xiran u sheeg in qof kasta oo wax doonaya uu sameeyo inuu jadwalkiisu gashto ama ku darsado akhriska saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam maalin alla keeno aniga maalin kasta waxaan ku salin jiray nebiga sallallahu calayhi wasallam waqti gaar ah anigoo niyadda ku haya arrin aan rabay oo baahi weyn u qabay wallaahi arrintii way ii hirgashay inkastoo caqli ahaan aysan suurtagal u muuqnayn caafimaad ahaanna aysan suurtagal ahayn faahfaahin kama aysan bixin waxa dhacay laakiin waxay ku adkaysatay in wax ay rabtay ay ahaayeen wax aan suurtagal ahayn ilaahay agtiis wax walba suurtagal bay ka tahay taas inaan xasuusano weeye qisada 22 gabar ayaa waxay tiri muddo ka hor waxaan ku riyooday nebiga sallallahu calayhi wasallam riyada dhexdeeda ayuu garabka intuu iga taabto wuxuu igu yiri qofkii igu saliya wuxuu heli doonaa wuxuu doonayo markaas ayaa hurdadii kasoo toosay waqtigaasna waxaa maalin kasta ku salin jiray nebiga sallallahu calayhi wasallam 1500 jeer qisada 23 gabar ayaa waxay tiraahday aabahay wuxuu la xanuunsanaa kansar muddo 20 sano ilaah naga xijaabo taas waxaan bilaabay inaan ku saliyo nebiga sallallahu calayhi wasallam salaatul ibraahimiya anigoo alla si buuxda ugu kalsoon fadliga alle awgiis hal wiil kadib aabahay wuxuu aaday baaritaan caafimaad dhaqaatiirtii waxay ogaadeen in burada ay noqotay mid aan khatar lahayn alxamdulillaah 24 gabar kale ayaa waxay tiraahday wallaahi mar kasta aan ku saliyo nebiga sallallahu calayhi wasallam oo aan badiyo anigoo wax qaasa niyeysanaya maskaxdan ku haya arrin gooni ah arrintaas waan helaa alxamdulillaah kadib qof kale ayaa yiri waxaan galay dhibaato dhaqaale aad u daran waxaan ku mashquulay saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam xitaa ducadeedii inteeda badnayd waxaan ka dhigtay saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam si lama filaan ah ayaa la ii siiyey xaquuq dhaqaale oo aan lahaa muddo 40 sannadood sheekadaas gudbinayay ayaa aad ula yaabay qisadan wuxuuna ka codsaday in faahfaahin uu soo diro mar kale 25 gabar ayaa waxay tiraahday waxaan jeclahay inaan kula wadaago khibradda ama experience-ka aan ka soo maray saliga nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaan daawan jiray barnaamijyadaada maalin kasta waxaan akhrin jiray 1000
oo ah salawaad. 900 oo jeer waxaan dhihi jiray Allahumma salli wa sallim calaa Muxamed. 100 jeerna waxaan akhrin jiray salaatul Ibraahimiya. Waxaan ku akhrin jiray yaqiin iyo qalbi joogto iyo feejignaan. Sidoo kale maalin kasta waxaan akhrin jiray suuratul Baqara hal mar. Ilaahay dartiis waxa aan sugayay muddo 4 sano oo dhan ayaan ku helay wax ka yar hal bil gudaheed. Ka hor inta aysan bisha dhammaan ayaan indhahayga ku arkay wixii aan rabay. 26 gabar ayaa waxay tiraahday Ramadaankii la soo dhaafay kii kasii horreeyay waxaan qortay liis oo duca oo ka kooban 7 duco. Waxaan bilaabay inaan sameeyo istighfaar, saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, salaada witrka iyo ducooyin. Wallaahi ilaa maanta 5 duco ayaa Ilaahay ii aqbalay. 2 kaliya waa ii harsan yihiin. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaysan ahayn ducooyin fudud ama wax yar. Waxaan weydiistay wax yar ma ahayn. Waxay ahaayeen waxyaabo u ekaay mucjizooyin oo aan weligii xataa filanayn. Alxamdulillaah, Ilaahay ayaa ii aqbal ducooyinkaygii wuxuuna igu hanuuniyay inaan sii wado istighfaarta iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. 27 gabar ayaa waxay tiraahday salaata Ibraahimiya way igu cuslayd. Waxaan dareemayay inay igu adag tahay. Markaas ayaan go'aansaday inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam siiqada gaaban laakiin tiro badan. Waxaan maalin kasta ku salin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam 100,000 oo jeer. Wallaahi haddii aan kuu sheego inta fudayd iyo barako oo noloshaydii soo gashay waad yaabi lahayd. Xitaa dadka i yaqaanay waxay la yaabeen waxay igu dhacay. Istighfaar waan samayn jiray laakiin tiro yar ayaan samayn jiray. Inta badan waqtigayga waxaan oran jiray Allahumma salli wa sallim calaa Muxamed. 28 gabar ayaa waxay tiraahday waxaan jaamacadda ka qalin jibiyay anigoo 24 jir ah. Kadib shaqo ma helin, guurna ma helin ilaa aan ka gaaray 35 sano. Micnaha waxa weeye shaqo la'aan iyo guur la'aan ayaan waxaan ahaa 11 sano. Arrintaas darteed niyad jabkii ugu weynaa iyo depressionkii ugu weynaa ayaa i galay. Xitaa salaada si joogto ah uma tukan jirin. Waxaan gaaray heer aan ku fikiro fikrado xunxun oo adduunkaba isaga tago. Waxaan ku dhawaaday kufurnimo. Kadib Ramadaankii la soo dhaafay kasii horreeyay ayaa dib ugu noqday salaada. Waxaan daawan jiray barnaamijyadaada. Waxaan bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam markii aan maqlay qisadii nabi Ibraahim alayhi salaam. Hal wiil kadib markii Ramadaanku dhamaaday nin muslim ah oo Faransiiska ku nool ayaa isoo doontay. Ninkaasi dhaqaale ahaan wuu fiicnaa, diintana wuu ku fiicnaa. Hal bil kadib markii aan guursaday waxaa la ii helay shaqadii aan ku riyoon jiray tan iyo maalintii aan jaamacadda ka baxay. Shirkadda aan shaqada ka helay waa meel lagu yaqaan inay adag tahay in shaqo laga helo adigoo dad aan ka aqoonin. Ilaahay dartiis hal bil oo salaad ah iyo hal bil oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa xalisay dhibaato aan ku jiray 11 sano. Subxaanallah. Taas waa qiso cajaa'ib ah. Waxaan alla ku dhaaranayaa in habeen jimco ah aan badiyay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu alla wiilkaygii ka leexiyay dhibaato weyn. Wuxuu markaas jiray 1 sano oo kaliya wiilka. Alla ayaa ka badbaadiyay dad aan Ilaahay ka cabsanayn. Intaas ka badan ma jeclin aan sheegay tir qofkan qisadan. Subxaanallah. Dadka noocaas maxay ahaayeen talo? 30 ma garanayo inta jeer oo Ilaahay iga badbaadiyay dhibaatooyin iyo ciriiri nololeed. Mar kasta oo aan ku dhaco xaalad adag waxaan ku saliyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo leh Allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Muxamed. Tabarteydii way dhamaatay ii gargaar ya Allah. Waxaan ku celceliyaa marar badan, mararka qaarkood 100 jeer ama ka badan. Alla ayaan ku dhaaranayaa, Ilaah baan ku dhaaranayaa 3 jeer bay tiri in dhibaatadeedu ay ku dhamaato siyaabo aan weligii filanayn. Waxa kale oo wanaagsan inuu qofka sadaqaysto markuu ka badbaado dhibaatooyinkaas. Ilaahay ayaa bixiyay tawfiiqda bilow iyo dhamaadba. Qisada 31 qisadeedu maanta ayay dhacday. Waxaan aaday xeebta. Waxa iga lumay oo kiyaalihii indhaha aan ku xiranayay. Meel kasta ayaan ka raadiyay ciidda dhexdeeda, biyaha dhexdeeda, alaabteeda dhexdiisii. Laakiin waan waayay. Markaas ayaan aqriyay ducadan Ilaahay iga badbaadi dhibaatadan badalkeedana isii wax khayr leh. Isla maalintaas Ilaahay wuxuu siiyay oo kiyaalo ka wanaagsan kuwii iga dhumay. Qiyaastii 3 wiil ka bacdi ayaan ku laabanay xeebtii. Maalmihii barakeysnaa ee 10ka hore Dulxija ayaa maalin kasta waxaan akhrin jiray salaatul Ibraahimiya. Waxaan is iri ama okiyaalihii haddana meeshii ka soo helaa bal aan soo raadiyo. 2 jeer ayaan xeebta ku wareegay.
waxna ma helin. Sikadiisa ayuu ninkayga isagoo socda ii yimid oo ookiyaalihina gacanta ku haya. Subxaanallah. Qof ayaa intuu ookiyaalihii helay wuxuu suray meel oo silsilad ah oo xeebta ku wareegsan. Ilaahay ha ka abaalmariyo qofkaas. Markaas ayaan xasuustay fadliga salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. Qisada ugu dambeysay waxaan leeyahay qiso ku saabsan salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. Uur ayaan lahaa oo 2 bilood, laakiin ilmuhu muusan samaysnin caloosha. Waxaa jira oo kaliya uurkii meeshii lagu qaado dasac ayaa abuurmay, laakiin cunug kuma dhex jirin. Dabadeed dhiiggii ayaa iga furmay, uurkiina waa ay miscarried, cunugii waa iga dhumay. Aniga ma fahmin sida Soomaali loogu fasirayo tan, qof dhaqtar maybe si fiican u fasiri karaa. Laakiin waxaan aaday dhaqtar, waxayna ii sheegtay in aanan u baahanahay in wixii layga soo xaaqo oo ilmagaleenka ku haray. Dhiig iyo waxyaabaa ku haray ilmagaleenka saan jeclahay. Marka wixii in laga soo xaaqay noqotay, waan cabsaday. Ilmihii yaraa, ilmo badan kuma jirin meesha, laakiin xinjiraa ku jira saa u malaynayo. Too much information raalli ahaada. Waan cabsaday, dhowr maalmood ayaa lasoo dhaafay. Maalin Jimco ah wax yar ka hor qorraxda intay dhicin ayaan fariistay oo aan bilaabay inaan si badan ugu saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam. Qalbiga ayaan ka jeclaa inaan marin qalliinka xaaqida. Nus saac kadib haraagii uurka oo gudaha ku jiray ayaa si dabiici oo natural iga soo baxay. Waxaana la socday xinjir iyo dhiig waaweyn waxaas. Alxamdulillah. Cisbitaalka markaan aaday marka ayaa waxaa la iga qaaday ultrasound, waa la fiiriyey. Dhaqaatiirtu waxay ii sheegeen in ilmagaleenkaygu nadiif yahay. Alxamdulillah. Isla markaana aan u baahnayn xaaqid. mahad oo dhan waxaa iska leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala arraxmaan arraxiim. Qisooyinkeena maanta intaas ayay ku eg tahay. Saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aan badino, nolosheenna ha ka mid ahaato maalin walbaba. Ugu sii daran maalinta Jimcaha iyo caawa camal habeenka Jimcaha. Anigana ii soo duceeya, idinkana waa idiin soo duceynayaa. Muslimiinta dhibaataysanna aan u duceyno. Jazaakallahu khayr. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.